بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن إذا لهانتين بقى dadweynaha nagu xidhan aad iyo aad baan idin salaamayaa kusoo dhawaada barnaamijkii xikmad iyo sheeko barnaamijkan oo runtii aad xikmado fara badan aan isku kordhino iyo sheekooyin qosol leh barnaamijka maanta waxaan insha Allah aan rabaa inaan kusoo qaato sababta fargalka ama faraantiga loo geliyo fartaasi waad ila arkaysaan fartaasi faraha runtii waxaa loo kala yaqaanaa abtirsiin bay faruhu kala leeyihiin carruurnimadii waxaa la odhan jiray suulgomod murdiso fardhexo faadumo faryaro markaa farta afka soomaaliga faadumada la yidhaah ama fartaasi sababta loogu xidho faraantiga ama fargalka ayaan rabnaa inaynu barnaamijkan kaga warano haddaba inta aynaan gudagelin ka hor waxaa laga yaabaa qisas ku saabsan inaad haysaan noogu soo qora commentiga xagga hoose intaynaan gudagelin qisadan ka hor qisada runtii faraantiga fargalkan waa la xidhaa laakiinse faraantiga marka fartan la gelinayo dad maanta qoomiyado adduunyada ku nool dadku waa kala diimo adduunyada maanta ku nool dad fara badan ayaa maanta meherkooga ama sababta waxa ay isku mehersadaan ama waxa lagu aqoonsado in ninkan uu xaas yahay ama gabadhani xaas tahay oo la qabo uu yahay faraantiga ama fargalka fartaasi la geliyo inagu dad islaamaynu nahay diin baynu isku mehersanaa iyaguse sida hindiya oo kale waad aragteen in faraanta la isku xidho oo fartaasi la isku geliyo sababta haddaba fartan lagu doortay ayaan rabnaa maanta inaynu sharaxno sababta fartan lagu doortay haddii aynu sharaxno waxa weeyaan gacmaha waxa laga soo qaaday nolosha ninka iyo nolosha gabadha sida ay isugu baahan yihiin kadib farihii waxaa la sameynayaa gacmihii baa waxaa loo laabayaa sidaasi labadaba sida feerhka oo kale oo ma qofku u duubto oo kale kadib sidaasi ayuu isku saarayaa sidaasi markuu isku saaro labadaasi haddaan soo bixiyo hore ee murdisooyinka la yidhaahdo iyagoo saa isku saaran kadib haddaan isdhaha kala qaad way kala qaadmayaan sida haddaad u eegtana oo kuwa iyaga oo kala qaadmaya maca daalik gacmihii way is haystaan way kala qaadmi karayaan micnaheegu marka noloshii weeyaan labadan gacmood bidix iyo midig waa ninkiiyo gabadhii baa laga soo qaaday waa kaa waa la laabay labadii fardhexaan soo saaray labadii fardhexo way kala qaadmayaan iyaga laftoodu labadii gacmihii kalena farihii kalena way is haystaan waana kala qaadmayaan waad aragtaan sidaa haddana idhaana waad aragtaan waan laabayaa labadaa fardhexo waxaan soo saarayaa labada faryaro taa fargalka la gelinaya ama faraantiga la gelinaya dib baanu dhiganayaa labadii faryaraan ka horreysiiyey labada faryaro waad arki kartaan farihii kale oo is haysta ayaa ay kala qaadmi karayaan way kala kici karayaan labadii gacmihii kale oo dhan oo is haysta farihii kale kuwa si fiican bay iskugu fadhiyaan kadib waan laabayaa waxaan soo saarayaa labada loo yaqaano faadumooyinka afka soomaaliga labada farood ee faadumooyinka loo yaqaan ama faraantiga la geliyo iyo fargalka labadan farood baan is odhanayaa kala qaad haddaba labadan farood ma kala qaadi karayo gacmihii oo is haysta farihii kale oo is haysta haddaan isdhaa kala qaad sidii kuwa kale u kala qaadmayin uma kala qaadmi karayaan marka waan kala qaadaya inta itaalkayga ah iyo inta awoodeyda ah haye waka gacmihii oo dhan baa kala kacaya adiguna daawada waa tijaabin kartaa taa micnaheegu waa maxay siday isugu baahan yihiin labadaa farood aanay u kala qaadmayn bay lab iyo dhidigu isugu baahan yihiin ee lamaanuhu ujeedada iyo xigmadda ku jirtaana waa intaa ay faraha kale labadaa farood uga duwan yihiin marka taasi waa taa xigmadda afka soomaaliguna sidaad ku maqasheen heesta xasan aadan samatar uu ku luuqeeyo oo siday rag iyo dumarku isugu baahan yihiin runtii aada u qeexaysa ee la yidhaahdo tii keliya haydee qurux lagu tilmaamay heesta ahayd bayd waxaa ka mid ahaa odhanayay hadday midigtu keli tahay runtii anuu cod ma hayo laakiinse idinkaa luuqdeeda garanaya hadday midigtu keli tahay tahar kuuma goyso tahartu waa hilibka aadka u adkaada kuuma goyso tahar kuuma goyso tiisna lagu maqaadee aniguna tabtoodan takuloo u baahnee yacni sida laisugu baahan yahay lamaanuhu aniguna tabtoodan taakula u baahne
haddii aan intaasi kaga gudbo sheekadeenii hore haddaan intaasi ku dhammaystiro waxaan rabaa markan in aan ku daro qiso runtii aada u xigmad badan oo waxyaabo fara badan oo kala duwan laga fahmi karo. qisadani waxay ahayd nin reer miyi ah ama reer baadiye ah ayaa rati ama awr qofba sida u yaqaan ayuu magaalo keenay. magaaladiibuu awrkii laba awr buu ninkan watay, midna wuxuu rabaa inuu raashin ku rarto, midna inuu suuqa geeyo oo uu kaash iyo lacag ku bedesho. ratigii ama awrkii markuu ninkii reer miyiga ahaa laga gatay ee laga iibsaday, suuqiisuu galay. nin la socday ayaa ku yidhi oo filinkiisao dhan arkayay ninkan inuu rati wato oo awrkan iibsaday, ne waxaysii buu ku yidhi. ninkii wuu diiday inuu waxba bixiyo, wuu diiday oo ninkaasi haafkii bariiska xitaa ka bixiyo. waxaa dhacday ninkii dhaku farsamuu markaa degay. ninkan suuqiibuu galay, ratiga iibsaday, kaashkiisii raashin iyo saliid iyo reerkiibuu dee alaab badan u siiyey, lacagna dee kolley kaash kalena wuu haystaa, wixii oo dhan dee alaab ma wada iibsan karo ninkii. kadib ninkii haafka bariiskaa loo diiday wuxuu sameeyey meel buu wuxuu dirqi ku amaahday laba beer dacasa, waa laga isla wada garanayaa beer dacasa ama laba kabood oo dacasa ayuu ninkani amaahday. lacagtii xitaa ma hayo. wadada uu ku caraabi doono galabta ninkan reer baadiye ahaa ee reer miyiga ahay na wuu garanayaa. wadadii uu ku caraabi lahaa galabta ayuu uga horreeyay duhurnimadii. ninkani xilliga uu soo mari doono horteed yar ayuu labadii kabood ee dacaskaa mid buu meel sii dhigay. waa kab dacasa oo cusub buu meel dhigay oo wadada dariiqa dhexdiisiiya. kadib wadadiisiibuu ku socday. wadadii markuu ku socday oo xoogaa cabaar sii socdayna oo aduu ilaa 15 daqiiqo kadibna meel kaleu dhigay. meel kale markii uu dhigay ayaa waxaa soo maray ninkii reer miyiga ahaa oo ratigiisii wata, awrkiisii wata, kaashkiisii kalena sita. waxaa dhacday markaasi in uu ninkii markuu arkay siduu u watay buu arkay kabtan dacaska dariiqa dhexdeeda taala. ninkii markuu kabtii arkay san uu eegay wuxuu yiri kolley dad bay ka dhacday ama rati kale ama awr kale oo meesha joogay, maxaa laakiin waxba ku tari mayso, kabtan haddaan kabteedii kala hayn iska daa. wuu iska dhigay kabtii, wuu iska dhaafay. cabaar ninkii markuu socday ayaa wuxuu arkay kabtii bidix bay ahayd, hore uu helay moogtahay, kabteedii midig oo kaloo meel taalloo arkay. ninkii wuu yaabay, waa nin kabtii kale odigii xaggii gadaal kusoo dhaafay meel halkaasa. awrkii intii ama ratigii intuu meel ku xidhay geed ayuu yiri kabtii kale ku doono. uu noqday intuu awrkii meel ku xidhay, kabtii kale doontay. intii uu kabtii ku maqnaa ayuu saaxiibkiisii dee xariifka ahaa ratigii iyo awrkii iyo wixii saarnaaba uu ka haystay. ninkii laba dacasuu ku maqan yahay, awrkiina waa la ka haystay. marka sheekadaasi intaasaan kusoo gabagabeynayaa. bal waxaad ka fahantay commentiska noogu soo qor. sheekadaasi waa runtii aad u macnayaal badan tahay. qof kastooba bal waxay ku tartay iyo waxaad ka fahantay noogu soo qor commentiska. intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa sheekadeenii maanta. tan iyo kulantideena dambe isarag wanaagsan.